السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا ما أنت أو خميسة بشو أي تاسد حيثون كي بش اللحاد برنامج كان قيمة له أو إنك جهل لينه ما أنسى كمدة أما هيس كمدة هيسي هذا راوي إلى يرحل كهذا وعري ولا يرحضه هو إلى أنت دمانتين وين وضع مقال هيسته لكن قف السبب مقلا أو سنها شحنك أما فنكي سوغانت إنه قف الدنيا كأيغو عاوي وحن اسكتي دونا بل إن أينو أفكار كالدون أينو كو عبرنا أهمية وين أما قدرينتا أي برشدو هايسو دينتين نسيسي هو يدا قف الوغي هاي قيمها أي هو يدو لا هاي ما أهمدي مكال الشيء طبعا لكن واحد يسكت يقبل إن حب علمية ولكن يابد بدن أنا وقف في سن هسته بحديد سيدا وبونكوا وكذا وجهي إن أينو عوال كان إن أينو كأجنو وحين نتشوجا مرتي برنامج كقريب جدي دونتا يكون حق ورا ينصف فدي الله وضبه وحن سلام يا سيد جامع حسين وسوف كهرا صوف فدي عن ضد حق ورا تشوجين عاوة أو دين عاهرة كسوت شيء ده أتم كور رئيس البرنامج كو أو ونوجو بلاميو روبل عبد موسى أو سوغان يهن فلنقي سوغان تيمان سوينك أي أمر كورا كان نوي من دونا وحكاها اللي دونا دنك وكيجيو هست هويو أما هوي لا أنت أو دنك هو جامد بالشدة سيدي هست سوغا هذا الشيء دنك هو جامد بالشدة تسوامد marka uu fariisto rooble waxa garbihiisa soo fariisan doona sheekh dalmar axmed sheekh maxamuud axmed sheekh dalmar oo halka horteeda soo fadhiya ayaa dhinaciisa fariisan doona waxa uu ka eegi doonaa isaguna dhinaca diinteena wanaagsan ay ka eegtay hooyada iyo qiimaha ay siisay waxa kale oo ku wehelin doona dooda sahra jibriil oo iyaduna dhanka fariisan doonta iyadoo na waxay ka eegi doontaa dhinac kale oo sifada hooyanimo hooyada ma aha sifada hooyanimo iyo waqtiga ama casriga maxaa ka dhaxeeya hooyadii waqtigii hore noolay 70kii 80kii iyo hooyada maanta nool sidee yihiin hooyada hargeysa maanta joogta iyo hooyada miyiga joogta hooyanimadoodu waa sidee farqi baa u dhaxeeya hooyada London joogta iyo hooyada hargeysa joogta yani hooyanimada iyo xilliga ama casriga waqtigii hore iyo waqtigan maanta iyo dalalka kala duwan ayayna ka hadli doontaa gabagabada barnaamijka insha Allah waxa aynu ku soo gabagabeyn doonaa koox halkan inoo timaada oo inoo qaada heesta lafteedii oo ina caawa halkan ka dhageysan doona insha Allah anigu aan sii sugaynin anagu waqtiga salaada ku beegan tahay laakiin barnaamijkeenu inoo bilaabmaya sida aynu shaacino 7:40 mar kasta sida darteed waxaan doonayaa inaan u yeero روبل عبد موسى أو نوفر دونا هذا الكسو جديد تاعي هراء سودو روبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ما بعد سكله أنت أكيد بوحنا ما هذا نقيا حرون تدقنك يا إسماعيل فرصة أي إنه جسميا أرن أنا شخصيا أنا فرح سنة هاينا أنا قريب كهذا inta kadib waxaan mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha iyo Sheekh Dalmar iyo walaashay oo qayb barnaamijka ka wada nahay suu sheegay Ismaaciil waxaan doonayaa inaan ka hadlo heesta hooyo oo mid ka mid ah suugaanta Abu Hadraawi laakiin bal in yaro gogoldhiga hadaan ka horeysiyo ama maxaa igu kalifay inaan ka hadlo ama aan eego ama waa maxay doorka aan ku leeyahay heesta hooyo oo niman saaxiibnahay ugu la kaftamay inaan aanu tirinin qaadin laxna saarin Cabdilaahi Xasan Ganee ayaa halkaa balse aanu iftiimiyay yadna runtii bulshooyinka caalamka
ama aqoontu waxay ku dhalataa oo ay ku kobocdaa ku kortaa falanqayn iyo sii baadhid dadka aqoonta seeska u dhigaana inta badan waxay sameeyaan iyagu aragti kooban siday u taalo laakiin macno ballaaran leh taasaa dadka dambe ka dambeeya ay sii faaqidaan sii falanqeeyaan waa waxaan aynu nidhaahno ama falsafad ama theory oo dhaqaalayahanka adduunka ugu weyn ama Adam Smith ninka la yidhaahdaa dee buwaagtu qoray hadda waxaa intaasoo goor ka badan buwaagta ay qoreen aqoon-yahano hadda nool haddana weli waxaa loo yaqaanaa aabaha dhaqaalaha sidoo kale waddamo kalena sidoo kale meelo kale sidoo kale dhinacyo kale markaa suugaanta soomaalida waxaan u aqaanaa anu shaksiyan inay tahay halka ay ku urursan tahay dhaxalka iyo aqoonta iyo xikmadda ummadda soomaalida sidaa darteed waxa waajiba oo qasab noqonaysa in kuwooda ugu shilshilis ay dadka dambe aqoon-yahanka inay noqdaan rabaa ay furfuraan dhex galaan la falanqeeyo laga gudbo halka hadda ay taagan tahay oo ah in suugaan ama gabay ama hees aad u micno badan oo falsafad ah ama dee luuqadda aqoon-yahanka markaynu ku hadlayno theory ama dhowr theory ba ah inay hees keliya ahaato ay bartaa taagnaato waa in loo gudbaa levelka ah in la falanqeeyo in daraasada lagu sameeyo in PhD lagu diyaariyo in wax laga qoro markaasaa la helayaa runtii micnaha dhabtaa ee ku jira marka heesta hooyo waa mid ka mid a uun theorieska hadraawi suugaanta ku jira halkaan markaa aniga iyo heestu iska soo gelayna wax iska noqonayna waxa weeye anuu ma yihi gabayaa ma yihi abwaan laakiin waxaan doonayaa inaan ka mid noqdo dadka ay tahay inay furfuraan oy dhex galaan oo haddii ilaahay u fududeeyo ay wax ka qoraan theorieskan say u yeelaan oo caalamka baraan oo ummaddeena baraan waxa in badan lagu doodaa inaanay islahayn dhaqanada wanaagsan hadday noqoto dawladnimada hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto bulshada ay suugaanteenu leedahay iyo mararka qaar sidaynu inagu u dhaqmayno bulshaha marka wax lala yaabo maaha dee lama dhex gelin lagama doodin ummaddii lama barin marka heestii oo dee mutaxan heestii hooy hadday hees un ay tahay 8 March la saaro marmarna MP3ga ka soo dhacdaa dee ma big deal maaha markaa in wixii hadraawi u jeeday oo dhan in la fahmi waayaa maaha big deal waynu ku kala aragti duwanaan doonaa anusaan u arko cid baa igaga duwanaan doonta waxba laga yaabaa inay cidi totalina khaldanahay oo aragto waan ku faraxsanahay oo ay aragti ka duwan oo kasii macno badan oo tayada waxaan anuu ka hadli doona hadda baabi yani meel kasii sarreysa geynaysa ay keento laakiin waa xagga aan rajaynaya inaynu guurno ee aan rabo waxaa su-aal kale noqon karta permission moo haysana ama dee haddaynu baashii aqoonaynay oo laga dhigay dee aynu aqoon ka dhignay ma haysanaa ogolaasho abwaanada ama hadraawiga inaynu dee sugaantiisa inaan galo anu waan haystaa hadraawi idinkoo dhanna waa haysataan halkaana haddaan idin xasuusiyo sirta nolosha hadraawi isagoo sugaanta kaga hadlaya ayaa waxaa ku jirta suda iyo ka guro dhuuxa soo maha marka in dee la dhex galo oo la falanqeeyo laga hadla hadraawi uu inoo fasaxay sirta nolosha inoogu dhex fasaxay gabaygiisa hal abuur waxaa ku jirta isagoo hal keliya dadku harag shabeel iyo ka dhigaan hariiriyo qof kastaa hab gaaruu u higaadsadaayo waxa ugu habboon yahay sida uu u haystiyo halka uu la doonto marka ana halkaan dee la doontaa waa halkii ugu wanaagsan markaa iyadna waa permission kale in hadraawi uu fasaxayo marka halka aanu markaa aniga iyo iska soo gelayna heesto ama halka aanu markaa aan kaga taxanahayeen dee kaalinta aan ka qaadanaya runtii waa kaalintaasi kooban hadraawi shaksiyan waa aragtidayda un haddaan ka gaabiyay hadday wax iga raacaanba waxaan u aqaanaa waan idinla qabaa inuu abwaan yahay ummadda soomaaliyed oo dhan say u qabto waxay dheer hadda ka hor barnaamijkan sheekh dalmar yaa ka mid ah dadkii aan ka duubay aan 20 second qofka lahaa kusoo qeex anuu hadraawi waxaan u arkaa iskuul madrasad
school of thought inuu school of thought yahay aan weliba dhinac keliya ku tegin oo school of thought ama madarasa fikriya caalamka waxa la school of thought economics politics sociology saas oo kale laakiin schools of thought dhowr aragtiyood oo kala duwan oo nolosha iyo bulshada ataabta oo gala waxaan u aqaanaa aqoon-yahan philosoph sheekh dhaqanyahan iyo mufti xeer dheer aniga shakhsiyan hadraawi wuxuu ii yahay wehel wuxuu ii yahay macallin wuxuu ii yahay hamishide idhiirigeliya wuxuu ii yahay hiil igarab gala marar badan oo aan u baahnahay oo aan iga daahin waxaa intaaba ii asugaantiisa wuxuu ilaahay igu simayey oo aan fursad u helay inuu hadraawi aan saaxiib la noqdo in ka mida noloshiisa oo noloshaydana micno badan ku leh wuxuu ii yahay waalid ama waxaan la yidhaahdo principal father oo noloshayda shaksiga ah kule door weyn kule taasina waa aniga iyo hadraawi iyo sidaan anuu shaksiyan u arko oo dee lagaga aragti duwanaan karo haddaan markaa u dhaadhaco qodobkan ka qaadanayay maasada oo ah oo anu aan eegayey jeclaa inaan eego hogaaminta bulshada iyo heesta hooyo hogaaminta bulshada iyo heesta hooyo laba qodob oo markaa technical aan taabto hogaaminta oo dee marka la isku celceliyo ama leadership marka la wadwado una ay qeexideedu kusoo ururto oo ay fadhiisanayso hanaan ama hab lagu saameeyo loona abaabulo kartida iyo dadaalka iyo awoodda dadka si loo hanto himilo ay wadaagaan dadkaasi kolba la hogaaminaya marka waa hab markaa bal aan eega markaa intaynan hogaaminta iyo markaa haddaan eegi rabo hogaaminta markaa qeexidda aan haystaa ama angalkaan ka taagani waa kaa hooyanimadana haddaan markaa sugaanta hadraawi iyo aniga fahankayga saan meelaha qaar u qaatay aan qaato ani hooyanimo hadda waxay igu qeexan tahay inaanay ahayn qof inaanay ahayn gabadh ilmo dhashay qof dhadiga oo ilmo dhalay inaanay ahayn ee ay tahay institution soomaali waxaa lagu yidhaha institution waxaa markaa sheekh dalmar baa iga caawin doona hadhow laakiin inay tahay hooyanimadu inay tahay dee urug dhan oo iskii u jira oo institution oo qeexidiisa leh oo aanay ahayn uun biological relationka hooyo ilmo dhashay waa qeexideedaas markaa waxaan ku fadhiyaa oo aan ku dhex qeexayaa waxa weeye soomaalida contextka soomaalinimada haddii aad barkiin ama igu khilaafaan ama aan isdhaahdaba caddayn usii raadi waxa aan tusaale u qaadani yadna hees kale oo hadraawin leeyahay oo aan anigu aad ula waafaqsanahay oo aan isleeyahay weliba wax weyn oo kalay sharaxdaa yadna meelaha aan dee isleeyahay waa falsafadihiisa ayay ka mid tahay oo uu hadraawi isgarab dhigayo inan ilmo aan lala ogeyn ilaahay qadaray inay dhasho iyo inan ilmo lala og yahay inay dhashay ilaahay marka labadii hablood inantii ilmaha aan lala ogeyn dhashay ay dee duruuftii iyo inaan lala ogeyni ay ku kalifayso inay ama ilmihii god ku riday ama ay u dhigtay ama ay doox dhigtay dee dhacdo xanuun badan oo dhacdo ah inantii ilmaha lala og yahay dhashayna markuu ilmaheedu ooyo ay godlanayso marka haddaan xaggii biologiga ama xiriirkii hore dee aan u noqdee qof dhadiga oo dumara oo ilmo dhashay dee waa laba qof oo dumara oo ilmo dhalay soo maha marka hooyanimadii way de contextka soomaali markaa way ka macno ballaaran tahay gabadh ilmo uun dhashay haddii context kale oo waddan kale waxaa laga yaabaa inay micnahaas dee qaadan karto oo aanay dee qasab ahayn ama in lala og yahay ama oo ay hooyadu dee ilmaheeda la iman karto aad moogtay anytime marka hooyanimadii waa aragti marka ay dee bulshadii heshiis ku tahay ama social construct tixdaa waxaa ku jirta bal albaabkan garaac
umul baa hurudee wax ku oogan xanuun amanuun gubaye ummal baa shidayo amuurii dhacay bay la asqaysan taho ilmahaydii hataa xalay aydu cunto naxariista ilayn anshax baa dhaliye haddii uurka habreed astaan gaaro lahaa hooyadii amranayd arxan goyse markuu xeer ilow ku dhaco ubadkii maganta hadbeegan marka dee wuu sii wadayaa hadraawiyo il dhexdiisa haddaanu bucdeedu warnayn soo ma soo olosheen marka waa labadii aragtiyood ee uu da isgarab dhigayay marka hooyanimadii ayaa dee waxay marka aniga macna ahaan ii samaynaysaa ama aragtidaan marka hadda arkaya ay tahay inay markaan dee soomaali ahay soomaali dhex joogo inay hooyanimadii tahay aragtidaa ka ballaaran gabadh ilma dhashay ee dee institution ay tahay haddaan tusaale kaleba usii gudbo haddii ay hooyo ilma dhasho oo ilaahay kama dhiga ay markaa iyadu dhimato ilmahaasi kolley waa run dee dareenkii caadifadeed ee hooyanimo waaya laakiin waxyaabaha aynu hooyada ku astayno ee afkii hooyo dhaqankii hooyo soomaalinimadii waxyaabaha dee hooyadii u gaarka ahaa waaya mise waxaa dhici kartaba dee inay abwaanada qaarba ay dee rajo kusoo koreen marka waaweyneda soomaalinimadaba tiirka udhigaya inay rajo kusoo koreen markaa waxaad kutusinaysaa qofkii dee hooyanimada fulinayay oo dee qofka ugu habbooni uu hooyada yahay unbaa meeshii ka baxaye isaga ficilkii hooyanimadu ama shaqadii hooyanimadu way dhacday oo way samaysantay dee ilmaha ay hooyada waalan dhashay bay tahay inuu daryeel kaa helo oo dee maaha inaynu sida loo kala hooyo fiican yahay sida saxdii maaha inaynu u kala fiicnaano maadaama ay conceptka hooyanimadii ay concept bulsheed tahay ilmaha ay hooyada waalan dhashay waa inuu helaa isna hooyanimadii de waa inu dhexdeena ku helaa oo uu bulshadii ku helaa marka labada concept aan ka imanayaa hooyanimaduna saasay igu qeexan tahay hogaamintuna saasay iyada igu qeexan tahay halkaa markaan soo dhaafo waxaan dhammaantiin aad ka wada dharagsan tihiin labada dhacda ee hadraawi ka sheekeeyo ee ku dhaliyey heesta kuwaas waa kuwa ku dhaliyey waa sax hadraawi isagaana inooga warramay anigoo rooblaaba markaa waxa isweydiiyey isna la xor baa u tahay in isweydiiso hadraawi markuu heesta hooyo samaynayey labadii dhacdo muu kaga warramay may labadii dhacdooyinku wixii dee inspire gareeyey ku kalifay bay ahaayeen laakiin labadii dhacdo muu inaga sheekeeyey dee beledweyn baa jirta oo da uu inooga warramay intii beledweyn iyo brishkii uu ku arkay iyo baabuurkii lasoo saaray iyo inuu seexday iyo riyadiisii iyo wixiisii oo dhan dhacdadii muu inooga warramay uu ka warrami karayay iyo in hooyadii libaax ay u badheedhay oo ay inankeeda dhacsanaysay oo ay baqan weyday oo maya kama warramin heesta muu kaga warramay inantii kale hooyadii yarayde ilmaheedu dee dhaafiyey in aanay dhaafteen haddaanay ilmaha haynin oo dhan ee aan isaga dhibsanaynin ee dee jaqsiisatay ee xaarkiisa dhabta ku qabsatay ee arrimo aanay yeesheen yeelaysay ilmaheeda u yeelaysay muu inooga warramay ma inoogama warramin okay markaa talow xaggee buu idila tegay waa anigaa sheekaysanaya weli sheekadaydi saas kaga wadwataa waxay soo baxday niyo malaha wuxuu is yidhi hadraawi heesta magaceed hooyo haddaad hooyo ka hadlayso maad samaysid hees ummadda hooyo u noqota hees dambe hees uu hooyo kaga sheekaynayo ama uu hooyo gaara kaga warramayaba ma aha heesta lafteeda ayaa waxay tahay hees uu ku talagalay ummadda hooyaha u noqoto waa iska dood aniga igu dhalatay markaa dabadeedna heestiiba waxaan u aaminayun anugu ilaa hadda aan aaminsanay markaa oo iska dee dood aan ogolahay in layga saxo iyo in laygu taageeraba ay tahay heestuba inay tahay uun heestuu hadraawi is yidhi hooyaad ka hadlaysaaye hees bulshada hooyo u noqotaa samee maxay markaa caddaymaha tahay igu dhiirinaya igu sii dhiirinaya hooyadu waxaa u dabeecada amaba kamida dee dhaqanadeeda dahabka aan la gaari karin inanka ugu madow maalintay dhasho
ay nuur bixisaa waa qof kasta kaalin gelin iyo waxa ka dhiman inay ku darto ayay u taagan tahay hooyadu waxay jeceshahay inuu ilmaheedu inanteedu ama inankeedu uu noqdo ka ugu fiican ka ugu sareeya ka ugu quruxda badan leh ka ugu dhaqan wanaagsan ka loogu ixtiraamka badan yahay bulshada marka waa inay sifaad ay dee u dhistaa soo maaha dabadeedna heestii hooyo oo bulshada hooyo u ah unbaa ila hadashay oo aan hooyaba ka warramay hees wahadraawi hooyo wahadraawi ummadda u sameeyey markaasay igu tiri rooblow soomaali baa tahay kow haddaad soomaali tahay hooyo waxaan kula rabaa inaad ummadaada wax ka noqoto waa qodob aye oy ummadaada ku sharafto ku ixtiraamto adigoo micnalana aad dhimato oo waana intay hooyo kasta rabto soo maha waa intay hooyadaani si cumar iga rabta aniga dabeedna heestii hooyo yadna iyo hooyaaba yadna intaa sheeg igu tiri markaasaa uu igu daray hadraawi haddaba ummaddan aad ka dhalatay maxaa wax lagaga noqda maxbaa ummaddan wax lagaga noqda ay ummaddan iga rabtahay ummaduhuna dee way ku kala duwan yihin aragtidaas oo waxay ummadda soomaalidu iga rabto ayaa haddaan dee ahay finish aanay dee ummadda finishku iga rabin waa baadi soocda wax isku ahaanshaha waa dareenka wadaagga dee keenaya dabadeedna waxaan arkuun heestii oo igala hadlaysaa arrimaha ay ummadaydu ay igu ictiraafayso sida ay hooyaday rabto inaan noqdo markaa option isi siinaysa igula rooblow hooyo waxaad noqotaa sidaa hadday kuu suuroobi weydo waxaad noqotaa sidaa ama waxaad ku darsataa sidaa waxaa kalood ku darsataa taa kale waxaa kalood ku darsataa sifadaa oo 7 sifo ii sheegaysa oo igula 8 sifo isku darso hooyo si aad ummadaada qof uga noqoto anigoo hooyadaayana lay xusuusto oo markaa karaamiyo magac igu samayso hadday wada suuro geli waayaanna qaar ka qaado dabadeedna waxaan ii soo baxday in heestaniba haddii si fiican loo fahmi lahaa oo wax looga qori lahaa oo waa lay dhigay markaan iskuulka dhigan jiray standard 5-kaygii laakiin san aan isleeyahay hadda malaha layguma dhigine inay aada loo gudageli lahaa inay iyada lafteeduba hogaaminta ummadda ku filnayd oo sida guri kastaaba hooyo lahaaba inay heestaniba hooyadii ummadda iyadoo ay ahayd hooyadii guudeena wada dhashay oo ummadda markaa wax wada gaadhsiin karaysay dee doorka ay hooyadu leedahay markaa waa ku bilaabaya hadraawi iyo dee horumarka ay hooyadu ina gaadhsiiso iyo dee natiijada horumarka iyo adduunyada halka ay marayso inuu yahay dee dadaalkii hooyada waa meerisyada hore waad wada taqaanaan waa hooye la-aanta adduunyada hubaashii habeen kama baxdeen oo iftiin lama heleen oo dadku uma hayaameen xidig hawada lulatiyo sida haad ma fuuleen xidig hawada lulatoobka laguma tuureen hawe laguma gaareen cirka hirir ka muuqdo hooyay addoomuhu halkay maanta joogaan adigaa horseedee intaad hanaad xambaartay haaneedka siisee horaadada jaqsiisee habtay baan xisaab iyo tiro lagu helayno waa intaasi waa in guudoo dee horumarka adduunyada iyo doorka hooyada haddaba heesta markaan aan hogaaminta ku xidhayo iyo marka aan hooyada u arkayo sifaadka aan ku dhex arkee ay igu leeaan isku yidhi yom hooyadii ummadda soomaaliyeed baa wax ka mid ah wuxuu ka hadlaya hadraawi oo heestu igala hadlaysaa hogaamiyaha oo runtii qeexdin aad u qurux badan ay siinayso hooyada maxaa lagu yaqaan hooyadu inay ku tiraahdo hooye waxani waa sidaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa ay kuusii sharaxdo oo ay ku fahansiiso iyadoo weliba dulqaad saa'ida u leh madax adkaanta ilmaheeda oo maanta oo dhan hooyada hadduu ilma kusoo noqdo hooy kan waa shimbir bay leedahay hooy waxani waa shimbir uu soo noqdo hooye waxani waa shimbir maanta marka hogaaminta ayay heestu si fiican oo macnalo weliba u sharaxaysaa waxay ku dhiirinaysaa ummaddeeda ciyaalkeeda soomaaliyeed waxaa ka mid ah geesinimada waxaa ka mid ah guurtinimada
iyo dee guurtinimada oo ah weliba dhiig baajinta meelahan lahaa markaa dee hooyo Soomaaliyeed waayo dee waxaa laga yaabaa meelo aan khilaafaadku ka jirin inaan qofka dhiigga baajiyaa micno badan samaynin waayo dadka dagaalada ma jiro laakiin hooyo Soomaaliyeed tahay dee dagaalada dhibaatooyinka ugu badan ee jiray ka mid tahay marka Cabdiwaraabe waa qof dee micno badan markaa Soomaalida dhexdeeda Cabdiwaraabe oo Soomaali waa qof micno badan aad u micno badan waayo xirfadan ummadda u qabtay shaqadan ummadda u qabto ayaa adeeg ummaddu ay aad ugu baahan tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka haysta waxa ka mid ah halabuurnimada dee Soomaali ahaan qof waarinaga aad ugu muhiim ah abwaanimada waxa ka mid ah guurka iyo in si micno oo sharaf loo karaamo leh isku guursado hadda ma aha lacag laakiin guur dee milkihiisa leh oo dhaqankiisa loo hidaraaciisa loo wanaagiisa leh inuu dhaco ee bulshooyinka qaar guurku ma ka mid aha waxyaabaha xaq guusha qofka iyo quruxda nolosha toona marka ta koowaad haddaan bal eego waxay heestu leedahay marka aad nin himilada marka kulley uun anu shakhsiyan waxaan isleeyahay meelo badan qur-aankan ay ku jirtaa literatureka caalamka oo dhan ay ku jirtaa meelo badan haddii nin la yidhaahdo men ama rijaal meelo badan waxaa loo jeedaa human being inuu noqoto marka aniga fahankayga hadda ninkaasi inantu igu jirtaa waayo ninka tii ka sarraysay baynu ka hadlayna actually dee hooyadiiya hooyanimadana aabbuhu igu jira waayo labadii hablood haddiiba uu dhintay xitaa inanta kale ilmaha cidday u dhalaysay ilmaha ciddii lahayd laakiin haddii aabbaha la garanayay hooyanimadaasi way badbaadaysa soo maaha marka hooyanimada markaan ka hadlayana runtii aabbuhu igu hoos jiraa oo dee waa institutions samaynaya qeexidii aan qaatay halkanna ninka inantuna way igu jirtaayo waa bani aadam marka heestii waxay leedahay iyadoo soomaalinimadeedana og marka aad nin himilada hilin toosan mariyo hir markii la gaadhaba ku labaad hilaadsho haga matidiiso la higsada dhashaaba hooyal hogaaminta waxaan u qaatay balqeexidaas oo keliya uun ila qiime hogaamiyaha maxaynu nidhi waa abaabulid iyo hab loo saameeyo loo abaabulo loona jiheeyo bulsho soo maaha ujeeddo la wadaagayana loogu jiheeyo heesta waxay leedahay markaa hadraawi leeyahy marka aad nin himilada hilin toosan mariyo waa ujeeddadii bulshadu ay wada lahayd qof wadadeeda mariya oo sida saxda ka yeela oo hir markii la gaadhaba himiladu waxay leedahay soo maaha sabis ku labaad hilaadsha oo kale loo xigee loo socdo sahamiya oo haga maatidiisa ummadiisa iyo maatidiisa cidda u baahan sida fiican u haga talow qofkan markaa uu sheegaya hadraawi ma qof inay hogaamiye igu abaa sharci oo waa leader by legitimate maya waa leader by with the will and the love of the people oo qof igu hogaaminaya kalgacaylkayga iyo aniga rabitaankayga oo maxaan ku garanayaa la higsade qofku waxa la higsadaa oo keliya marka la jeceliyo haddii madaxdaada aanad jeclayn ma higsanaysid marka gaadhe ruuxiya oo ay ummaddan ku faraxsan tahay marka qeexidda suu ila hadlayo doorka uu siinaysa heestu ayaa hooyadii bulshada waxay ugu tidhi rooble hooyo haddaad doonaysa in dee bulshadaadu ku xustay ku xasuusato doorkan qaado doorkaasi waa waxaad ku darsataa doorka amaba isna option oo aad qaadan kartaa guurtinimo oo ah in aan dadka dee heshiisiiyo dhiigga baajiyo ummadda kala ilaaliyo waa sababtaan dee soomaalinimada ugu xidhayo waa meelu muhiima waa beyd kale odhanaya socod wada taqaanaan marka aad nin hoogiyo ka hortaga dagaalko garta hubin yaqaano xaqa hoos u eego halistiyo colaadaha ku hagoogta dhiigo dadka kala hagaajo kala haga dhashaabaa hooyal ku xusto jaani saddexaad oo ay haddana maasadii ila tegayso
ay bulshadii Soomaaliyeed tagayso oo ad doorarka ay hooyadu ilmaheeda u diraysa ay leedahay kaalinta kala buuxi haddaan kaalintan aanad buuxinaynin waxa ka mid ah deeqsinimada again waa wax kale oo haddana identity-ga Soomaalinimada xaya Soomaa way deeqsinimadu qasab ma ahayn madax caalamka oo dhan amaan wada tahay meelaha qaar baa lagu arki karaa deeqsiga stupid aan hantidiisa si xun u sayfeynaya Soomaa halka Soomaalinimada dhexdeeda ay noqonayso amaan iyo wax weyn oo micno badan sameynaya marka waa beemeerishada ay heestu leedahay marka nin hoolo gurigiisa habaqluhu marka aad nin hoolo hor Ilaahay geysto gurigiisa habaqluhu isku soo haleeyo hayntiisa quuro lama baa hooyo lagu xasuustaa marka iyaguna waa beedad kale oo waxyaabihii aan ummadayda markaan kaga kasbanayay magaca iyo wanaagga iyo sharafta iyo tilmaamaya waxa ka mid ah geesinimada waa xaqiiqo kale oo jirta inuu qof dagaalyahan yahay inay tahay waxyaabaha bulshada Soomaalida dhexdeeda ay ku amaanaayeen noloshii markaa jirtay awgeed marka waa kaalin kale oo haddaan ummadda ka buuxiyo ay hooyaday magac u noqonayso ama kaalin kale oo heesta hooye ummadda hooyada u ahi ay ummaddu ka rabto inay iyaguna buuxin karaan waxa weeye meerishada ile marka aad nin hiilo laga baqa heshiisiyo haliyay diiran dhashaaba hooyo lagu xasuustaa waa kaalin kale waxa ka mid ah hal abuurnimada hobalnimada iyo abwaanimada hal abuurada oo de galayso wax badan marka caalamka entrepreneurship ku xataa gali karo muhiimdiis ku gali karo waa wax leynala wadaago bulshooyinka qaar weyn la wadaagaan hobalnimada iyo abwaanimadu waa waxyaaba ay ummadda Soomaalidu astaanta gaarka ah u sii leedahay haddii qofku Soomaaliga uu ku sifoobo ay ka mid tahay waxyaabaha ay bulshadiisu uga mahadnaqayso ay bulshadiisu ku mahadinayso lagu xasuusanayo marka hooyadii oo heestii hooye bulshada hooyada u ahayd ka mid ah kaalimaha ay naga rabto inaynu buuxino waa meerishada iyaguna odhanaya markaad hoobal caan iyo hindisaa farshaxan oo habdhaca iyo luuqdaba markaad hoobal caano hindisaa farshaxan oo habdhaca iyo luuqdiyo hawraarta maasada heesan yaqaanoo rabbi hibo u siiyiyo hal abuur dhashaabaa hooya lagu xasuustaa waa kaalin kale yada marka oo yada Soomaha bulshadii buuxinaysa waxa ka mid ah oo doorka markaa ugu dambeeyay markaan eegaya ka mid ah waxa amaana innaga dhexdeena waxa amaana qoyska in qoys la sameeyo oo ay qoysnimo jirto oo loo samaynayo sifo waliba sharciyo oo sifo jiro oo la yaqaan Soomaa marka arrinkaasi uu dhacana oo hadii aanad kaalmahan hore kala qaadanin oo aanad hogaaminta qaadanin oo aanad geesinimada qaadanin oo aanad guurtinimada kaalinta guurtinimada qaadanin oo aanad deeqsinimada aad u qaadanin oo hal abuur ahayn haddana haddaad bulshada intaad qoys u samayso aad bulshada badiso kaalimad ku leedahay weli Soomaa oo bulshada si taban aad ugu soo kordhiso marka iyadna waa kaalin kale oo aad ummadda ka qaadan karto oo laga mahadin karo waa meerishada marka ay heesto odhanayso dumar iyo haweenba nolol lagu haweystaa marka guur la haybshee gabadh heega dheer oo hoobaan la moodo dumar iyo haweenba nolol lagu haweystaa kuwa lagu hamiyaye sida hawd caleen weyn ragu wada hamuumeeshu halacsanaysa hablahaaga weeye marka guur la haybshee gabadh heega dheer oo hoobaan la moodo karti iyo hubqaad loo quruxdana ka hodano hufan laga aroosaa hooya lagu xasuustaa marka iyadna waa kaalin kale haddaad actually beedadka u fiirsato ammaantu ma ku jirto oo keliya hadda inanta ay hooyadu dhashay waxay ku jirtaa reerka la samaynayo
waxay ku jirtaa reerka la samaynayo sida loo samaynayo oo dee dhaqankii soomaalida ah oo uu ku bilaabayo marka guur la haybsho haybsana soo maaha aan raacno waa la hida raacadi soo maaha ay markaasan haddana u dhacdo marka heesta markaan anu saa u eegay ee aan eegay heestu baydadkan ay ka hadlayso waxaa ii soo baxday hadraawi saan markii hore ba yidhi hadraawi labadii duruufood ee soo maray ee hooyadii inay libaaxa ugu dhex timid iyo gabadhii inay ragga dhexdeeda ilmihii yaraa saxaradiisii iyo kaadidiisiiba ku laalaabatay ku jaqsiisay waxay ku kalifeen uun heesta inuu tiriye hadraawi markuu heesta tirinayay wuxuu is yidhi hees bulshada soomaalida hooyo u noqota tiri marka aniga heestan hooyaba waxay hadda iila macnaysan tahay hooyo soomaaliyeed yani hooyo kasta waa hooyo soomaaliyeed laakiin hooyo soomaalida hooyadood inayba heestuba tahay oo ay soomaalidii ku leedahay san say adiga hooyadaa kugu leedahay hooyo san noqo hooyo san yeel hooyo san uhilgal inay heestan oo soomaalida hooyadoodii ay leedahay hooyo hogaamiye noqo waana noqon weyday hooyo guurti noqo cabdiwaraabo noqo way dhici weyday iskuba darso way dhici weyday hooyo deeqsi noqo way dhici weyday hooyo geesi noqo waxaad noqotaa hooyo hal abuur abwaan noqo hooyo saas oo kale guur fiican samee marka billahi calaykum heesta hadraawi ma hooyad keliyuu kaga hadlay mise heestu kaalintana way ku jirtaa waa angalkaan markaa aanu taaganahay waana waxaan markaa leeyahay runtii hadraawina waa xorriyadu ina siiyey waayo hadraawi wuxuu ka hadlo sababta heesta ku dhalisay isaga laftiisu halkan imika aan ka hadlayo dee inoo daayay waxaana maasada halabuure hore marka aan soo taabtay inoogu sheegay inuu qof kastaa meel ula kici karo ayna ku habboon tahay qofku halkuu ula kacayo sharixi karo marka in aragtiyo dheer ay kasoo bixi karaan marka waa astaanta waxaan inay aqoon tahay markaa caddaynaya aragtida markaa runtii idiin soo bandhigaya ayay aan u badanahay waa taa inay heestu ay halkaa ka hadlayso haddii halkaa laysla maro oo aynu ummaddu kaalmaha gasho waxa lama huraana waddanku inuu hagaago literatureka carabigana waxaa ku jirta mararka qaar in hooyada waddanka loo yaqaano markaa labada hooye kaa doonta ka dhigo hooyada kalena astaamahan way ku sifowdaayo way leedahay haddii dee intaynu kaalmahan qaadano waddankii hagaagana oo dee hooyadii weyneed ee waddankiina maxay ku sifoobaysaa marka waxay ku sifoobaysaa marka astaamaha hooyo la-aanta higaad lama barteeno hadal lama kareeno ruux aanad habinoo kolba aanad heesiyo hoobay ku sabinoo hawshaada waayaa hana qaadi maaye hadda ma aha un hooyada haddii kaalmahan kale aynu buuxinana waddanka iyo qoomiyadnimada iyo soomaalinimadu waa waxa inoogu jira dee kaalintan waa sababtaynu ku bilownay markii u horreysay doodaan ku bilaabay ilmaha ay hooyadii dhimatay maafxabash buu ku hadlaa ama ilmaha ay hooyada waa ilaahay xiskii dhashay ka qaaday isagoo soomaaliya nagulama hadlo maaha in kaalintii hooyanimada shaqadii ay cid kale u buuxiso ma beritii ha noqoto midadii ha noqoto ama qof aan garanayn ba ha noqdo amaba qaranku intuu damaanad qaado xarunta ogomaha ku koro isagoo inuu ilmo soomaaliya soo baxo maaha marka qasabkii hooyanimada haddii marka aan intan la akriyo waxa weeye haddii aan sifooyinkan ay soo marisay hooyadu aan ku sifoobo waddankuna san uu noqonayaa cid walibana san ay helaysaa markaa sida hooyada waxaan looga helo ayaa waddanka iyo ummadnimadana looga dhexelayaa hooyay dushaada nabad lagu helaayo hooyay dhabtaada hurdo lagu gam'aayo hooyay taftaada dugsi lagu helaayo waxa lagu almaalaa hooya ababintaade hayin lagu baraaraay hogol lagu qaboobaay gogol lama huraanay okay I get emotional with this part anyhow waxaan ka wadaa
concept hadduu san u sharaxmo waxay noqonaysaa un in oo aragtida san loo fahmo aragtida hooyanimada san loo qaato marka aanu san aan u arkaya haddaan ku sharaxo markaa in aragtidii hooyanimadu ay hooyada keliya ka ballaaran tahay dee dadkiina ay hooyo isku wada yihiin waa in dee loo fahmaa in dee adeegyadana aan dee hooyadoo keliya waajib loogu lahayn oo dee hooyadana ilmaheedu ugu leeyahay ummad ahaanna dee inagu isugu leenahay halka markaa aan heesta hooyo iyo hogaaminta bulshada iska soo geliyay waa halkaa oo aan aaminsanahay waa hees haddii sideeda loo fahmo runtii horseedi kartaa wax badan oo kaalmahaas o dhan buuxin karta marka ani halkaasay ku eg tahay haddaan soo koobo unoon mar labaad ku celiyo waa hogaamin oo ay heesta hooya ka hadlayso bulshada leedahay marka aad nin himilada hilin toosan mariyo hir markii la gaadhaba mid labaad hilaadsho hagamaatidiiso la higsada dhashaabaha hooya lagu xasuustaa waa guurtinimada iyo dhexdhexaadinta oo ay leedahay heestu marka aad nin hoogiyo ka hortaga dagaalkoo garta hubin yaqaano xaqa hoos u eego halista iyo colaadaha ku hagoogta dhiigoo dabka hore baktiyo dadka kala hagaajo kala haga dhashaabaha hooya lagu xasuustaa deeqsinimada marka aad nin hooloo gurigiisa habaqluhu isku soo haleeyo hayntiisa quudho hor ilaahay geystiya lama hore dhashaabaha hooya lagu xasuustaa marka aad nin hiilo laga baqa hashiis marka aad nin hiilo laga baqa hashiisiyo halii diiran dhashaabaha hooya lagu xasuustaa oo geesinimada hal abuurnimada hobalnimada iyo abwaanimada markaad hoobal caan iyo hindisaa farshaxanoo habdhaca iyo luuqda iyo hawraarta maansada heesayn yaqaano hawraarta maansada heesayn yaqaano rabbi hibow labadaba hanaansho rabbi hibow siiyo hal abuur dhashaabaha hooya lagu xasuustaa samaynta guri soomaaliya oo islaama oo micno leh dumar iyo haweenbaa nolol lagu haweystaa kuwa lagu hamiyaye sida hawl caleen weyn lagu wada hamuumee ishu alacsanaysaa hablahaaga weeye markii guur la haybshee gabadh heega dheeroo hoobaan la moodo karti iyo hubqaad loo quruxdana ka hodan oo hufo laga aroosaa hooya lagu xasuustaa lixdaas sifo aduu sagaalkaas sifo ayaa aniga heesta iga soo baxay heestana waxaan u fahmay in aanay hooyadoo keliya ka hadlaynin ee uu hadraawi rabay inuu qoro heesh ummadda hooyo noqota waad mahadsan tihiin intaasaan kaga baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد مهسنتها يا روبلة وحا عن إلى سور دويسان شيخ محمد شيخ طلمر ويسوقوا إنو شيغيا موضوع عنك إيغيا دينة إسلامك ما نصدنا إسوقوا ما أنت وحو إيرا شيغي إنو تاقنا مالينتي لدوبيي أو كشقيني راديو هركيسا مركا وحوغا personal story صورها عنا وينو هيا واد مهسنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين runtii inta aanan u gelin diinteena suuban ee diin islaamku hooyada maamuuska ay u yeeshay iyo muunaynta ay gaadhsiisay iyo sida ay waajib uga dhigtay waddo ifkana aan la liibaanayn aakhirana la nabadgelin haddaan hooyo loo soo marin arrimaha intaanan u gelin laba qodob oo muhiima baan ku noqonayaa oo hadalkii rooble ka muuqanaya rooble wuxuu si kale u yidhi markuu yidhi heestii aniga waxay iga muuqatay in ay noqoto hooyo dadka dhadhansanaya ama dhadhaminaya suugaanta maxamed ibraahim warsame hadraawi ee soomaalida ah
hooyo u noqoto waa ra'yi yani yaab leh oo falsafad wata oo farshaxanimadiisa wata oo isaga qudhiisu u baahan in ama isagu haynoo dildilaaciyo ama ha laga daba tago yani ha la saafee bayaamin yani badan u baahan laakiin hooyo marka la idhahdo wax yani fudud inaanay ahayn ee ay tahay waxa uu ku tilmaamay institution ama mu'asasa ama waxa inagu aynu af soomaaliga odhan karno yani ugu dhow baan umalanaya rug marka la yidhaahdo yani waa wax iswata oo dadkii iyo afkaartii iyo howlqabadkii iyo wixii oo dhan ah marka rug waynu isticmaali karaa ereyga institution ama mu'asasa oo kale wuxuu ku tilmaamay madrasa inay tahay dugsi ama iskuol waa dhab waa looga horeeyey dadka dhaqanka aynu wadaagno ibni aadamnimada wadaagno ama aynu diin islaamka iyo dhaqanka ka farcamaya ee wanaagsan wadaagno nin ka mida oo la dhahdo xaafid ibrahim oo gabayaaga caanka ah ee reer masar ama ummadda af carabeed ku hadasha ka mid aha wuxuu yidhi الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هويو ومدرسة أما الدكس وحبرشو وهداد ديارسو سوى نكسن وأبابشو وأدو أقبتو وحد ديارنا يسايو كدالنا يا شعبا طيب الأعراق ومد أما شعبي دون ونكسن دون ونكسن وحوي انت وشيكي يوردن inooga muuqata maansada hadraawi geesinimo ha noqoto deeqsinimo ha noqoto guurtinimo ha noqoto yani qiyaadad ama dadwadid ama horkicid ya hogaamintu marro bay noqonaysaa ma ogtahay tii awrka lagu wadayo inaan ikhtiyaar lahayn laakiin waxaan door bidaa anigu horkicid horkace hor soconaya dadka waxaasoo dhan ayay koobaysaa marka loo soo noqdo hooyanimada waa run oo hooye ha ahaato yani physiological ama biologically dhadigii qofkan ilaahay ku suuro geliyay inuu ifka yimaado laakiin waa mu'asasa waxaa ka mid a يعني مركا أي أموليس أنت عاونيس وحكى بدا أهلك كحيرا أمش الدري لي وحكى بدا سيجا وناكسن مسؤولية دي سكرنا إياه إن فقين تيدا يدري الكيدا كورقبة وحن سوق علي أنوجو يدو أولي يدعو واجب بيهي تقن كينو هريميجا ودوغو ميلك ساجوغو هدان bani xidhin ama meel fog oo aanu ka imanin aanu joogin ama dee qadar ilaahayba aanu maqnaysiino aanu dhimanba marka hooyo umulayso waa inuu joogaa guriga sababtu waxa weeye mas-uuliyadda xoolaha odayga looma gacan dhaafi jirin daryeel heli mayso wanaagsan oo nafaqo ah yani umushana medical waxay u baahan tahay daryeel iyo nafaqayn iyo in loo soo jeedo waa inuu joogaa odaygu oo uu ku dhiiranayaa xeradiisa intuu galo inuu u qalo oo u basriyo waxaasoo dhan baa kaabayaashii hooyanimada ah sidaa daraaddeed ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hooyadii isaga waxay dhimatay isagoo 6 jira dad wuxuu ugu jeclaa gabadh la odhan jiray ayman alxabashiya waqtiyo hore oo aan diin islaamka wa soo gelin oo dunida bari carab arabiya iyo dunida kaleba ay caadi ahayd in dadku u islahaado this institution of slavery ama rugta lagu maamulayo addoonnimada gabadhani waxay ka mid ahayd xoolihii uu aabihii uga dhintay xayn adhiya 5 tuldood oo geela iyo gabadhaas waxay noqotay
qofka uu ugu jecel yahay dad oo dhan markay u timaado fadhi uga kici jiray go-iisa sare u gogli jiray innahaa ummii bacda ummii buu odhan jiray waa hooyaday hooyaday dabadeed waa hooyaday gurigeedu kusoo booqan jiray markii uu xijaabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadii duq ee yani caalamalislaami ugu mudnaa ee khilaafadan isaga dabay abubakr asidiiq iyo cumar bn alkhadaab radia allahu canhuma labaduba waxay ka dhigeen practice inay caado ay wadadii rasuulka maraanay gurigeedu kusoo booqdaan iyagoo ah ragga laga wada haybasanayo ee dunidoo dhami soo egeyshay marka waxaa xitaa hooyo daraaddeed yani rasuulku u baajiyey rag doonayay naftooda inay diin islaamka u fidiyaan inay jihaadka galaan nin baa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la odhan jiray dalxa ibnu mucaawiya nebigaanu yihi calayhi salatu wasalaam waxaan ku ihi rasuul allow waxaan doonaya inay jihaad tago wuxuu igu yihi hooyada ma nooshay haa baan ku idhi ayada haddaba la joog keliya mu odhan cagaheeda fadhi buu yidhi halkaasaa jannadii ku jirtaa yani waa arkaysaa markaa daryeelka hooyo inagu waxaynu naqaanaa matalan iminka in badan oo ka mid a inkastay dad badan oo rag badan oo wanaagsan oo hooyo daryeela ay jiraan in mar hadday habla leeday ama inan leedahay inanteedii baa la joogtaa hablaheedii baa hayee marka ay raggu mas-uuliyadda sidaa uga faraxashaan laakiin waa kan rasuulka calayhi salatu wasalaam ninkaa not only inuu yidhi iska joog ee yidhi cagaheeda weliba fadhi halkaasa jannadii ku jirtaa saxaabi kale sida yani uu warinayo ay warinayaan ibnu maaja tabarani wanasaa'i baa u yimi oo uu yidhi hooyo ma leedahay markaasuu yidhi haa faalzimha faina aljannata cinda rijliha hooyo haddaad leedahay ayada la joog keliya maaha waxa weeye marnaba ha ka agdhaqaaqin alzimha sidii hadhkeeda oo kale ugu lamaanow jannadu agteeda ama cagaheeda ay hoos taalahay waxa ugu yani murti weyn hadallada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu arrintaa inooga sheegay sida uu warinayo abu hurayra radia allahu canhu nin baa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa rasuul allah yaa ugu xaq leh la jooga iyo yani mucaasharada ama aan la macaamilayo oo aan u samafalayo qofka ugu xaqlihi waayo waa hooyadaa buuri deedna yaa ku xiga hooyadaa marka uu yidhi yaa ku xiga hooyada waa 3 goor markaas afraad uu yidhi uma man yaa ku xiga uu isleeyahay marka afraad wuxuu kula doonaa hooyo buu yidhi abuuk aabaha 3 goor markii hooyo la fuudh yaalay baa odaygii markaa uu imanaya waa 3 goor baa loo leeyahay number 4 buu gelaya markaa bogti halkaas aad ka garanaysa miisaanka arrintu ay leedahay waaye marka maanta haddaba la eego xaaladda lagu in yahay ama hooyo ay ku sugan tahay dadkii rasuulkooda calayhi salaatu wasalaam uu sidaa lahaa laba sawir bay inoo soo baxayaan wax duruuftu keentay oo waxaa dagaalla ka soconaya dunida waxaa eedaad iyo leelleel jira dadka qaxaya dadka badaha isku maqiiqaya isku biimaynaya kuwa dayuuraduhu garaacayaan kuwa digtaytarada iyo masaa'ibka lagu salidaya ay 34 sannadood in ka badan kada kaga fadhiyaan ay gowracayaan ay isku beleynayaan waa caalam alislaami bay u badan yihiin inta badanna leeleelka intiisa badan iyo eedaadkaasi waxa uu cuskadaa hooyo marka halkaa su-aalo badan baa maalinta qiyaame kullay taagan wax badan la isweydiinayo laakiin dhinac kale marka aynu ka eegno marka la degan yahay ee caadiga la yahay iminka waxaan odhan karaa ilaahay mahadi weeyaane somaliland intan aynu joogno degree of normality
caadiya nolol caadiya baa lagu nool yahay oo qaxna ma jiro dagaalna ma jiro wareer badanina ma jiro shuqul soomaali badan oo aada waxyaaba badan qoonsanaysa waad arkaysaa laakiin caam ahaan si wanaagsan oo caadi noloshu caadi tahay baa loo noolyahay marka laba hooyo marka la eego oo midi halka ku barbaartay midina dhulkaanu u badanahay iminkaee the west ama galbeed idhahdo ama western europe iyo north america ha ahaatee markaad isu eegto markay bilaabayaan hooyanimada waxaa fuud yeelan ama sareedo iyo nimco badan gabadha hooyanimada ka bilaabaysa london ama new york ama berlin gabadha waaba caddo ama maxaan ku dhahdayen wherever hawd ama nugaal ama saraar ama sanaag miyigeeda hooyanimada ka bilaabaysa tashiilaadka iyo agabka gabadha u diyaara ee caafimaada ee dhakhtaradii oo diyaara ee waxaan la yidhaahdo daryeelka daba socda after care post natal care yani umusha iyo dhalidda ilmaha kadib daryeelka iyo xanaanada daba socota ilmaha sida loola qabayo inta rugood ee hooyada iyo ilmaha ah sidaa yani ugu kankoonsan ee daryeelaya waayo gabadhaasina waxaa laga yaabaa dee dirqiya allah inay ku umusho hadday nasiib leedahay inay dee maaragtay ilaahay caafimaad siiyo la waqaqi oo loo qalo la daryeelo ilmaheedii ay saa korsato laakiin marka labadii yani ilmihii ay dhaleen ay 10 jir gaadhaan gabadhan waxaa laga yaabaa halkan joogtay ama inan ha ahaado ama inana ha ahaadee inuu xaqii hooyada dhowrayo inuu hooyadii ka haybaysanayo inuu ka xishoonayo iyo xitaa hadduu moogtahay fadqalalo iyo maxaan ku dhahday dhibaato geysanayo inuu ka ilaaliyo laakiin kii xaggaa joogay ay u badan tahay 100 su-aalood oo qaar uu xaq uu leeyahay qaar uu xaq uu lahayba ay imanayso markuu yaro garan gorona maam dee maxaad ii sheegaysaa ay imanayso ha socoto halkaan u socda waxa weeye marka ay dani timaado oo labadii gabdhood ee laga yaabo in isku daahanay maalin wada umuleen maalin hooyanimadooda bilaabeen ay waayeelaan sida ay u badan tahay halkan hayntu ha yaraato maxaan ku dhahday agabka iyo adeega la haysta ha yaraado laakiin the human touch xagga bini aadanimada iyo mudiicnimadii hooyada halkan ima dayacanto xaggaa laakiin allahuma najina iska daa hooyadii annagii ragga ahayn baa war meesha ha ku gaboobinin ya meelaa la isku tuuraa home la yidhaahdo homeka ahlu naar oo dhan ba usoo shaqo tegaya waan u soo taagnaa magaalada shafiil la yidhaahdo shooki ku yaala shooki shaga by the way dhalinyarada dambe waxaa laga yaabaa inay afgaran waayaan markaan hadallada qaar ku hadlo la iiga yeedhay oo la yidhi gabadh soomaaliyeed oo home la yidhahdo ka shaqaynaysay ayaa arrin argagax la aragtay waad ka qoraysaa wixii aragtay statementka nin ka mida dadka la yidhi homekaasuu ka shaqaynaya oo dadkaasuu daryeelaya ayaa islaan 80 jir ah oo dadkii ay ahayd mas-uuliyaddiisa inuu daryeelo ayuu ya boqonta allah qabtay dib ugu noqday shock inantii baa ka riday inantii baa wallaahi qoortan kaa goynaya
فريد به ديرلو انت انما دينو تيمي تي ورساسا جرتو بودي جارد با لو سميي ان رسبه هنا بليس بهنا انما لا سocdo mar walba ka waraya inaga ma dhacayso hooyo way daryeelan tahay meel bay lagu og yahay wixii itaal de gaadhi waayo mooyaane xanaano iyo kalgacal iyo daryeel ilaa ay tii alla u imanayso waxa weeyaan waa wax sugan weeye waxaasina wuxuu ka imanayaa dhaqanka islaamiga ah iyo tawjiiha islaamiga ee la kala qaatay meel kale ka iman maayo laba arrimood labadaba de anigu aan u soo taagnaa baa jiray gabadh reer ingiriisa oo yaraanteedii nin soomaaliyeed soo guursaday islaamtay halka timi noloshii la qabtatay oo soomaaliyooday oo markii la qaxay sidii soomaalida u qaxday oo igla ku noqotay markay xagga ku noqotay waxyaabihii ugu horreeyay samaysay waxaa ka mid ahayd hooyadeed oo markaa da'dii u timi laakiin weli aan homekii la sheegayay la geyn meeshii lagu tuuri jiray dadka wayalka bay waqooyiga england ka doontay ay tidhi ma jirto hooyaday anaa haynaya oy siday u haysay sidii de gabadh muslimay oo ama soomaalida u hayn lahayd u haysay oy yaabtay laantii ay leedahay de hooyo why you do all this for me I deserve wadadii ay ka guurtay moogtahay ama aan looba sheegin ama aanay u galowmayn xaq hooyo oo ay leedahay inuu waajib ku yahay dadkan ay dhashay laakiin tani garanayso muslimnimada daraaddeed sidii ayay iyadoo marba sacab ku ridayso aanay habeen keliya diif iyo dayac arag bay ku xijaabatay arrinta kalena waxay ahayd sidaa yani homeka shafiil ee la iga yidhi london meel ah ayaa waxaa la yidhi gabadh baa ka shaqaynaysay iyana careriska dadka daryeelaya ka mid a islaan duq beesha ku jirta ayaa waxa farasaaray oo feedhay oo garaacay inankii ayeyda u ahayd oo weliba ku qoran inuu yahay keerarkeeda ka gelaya lacagna ku qaata laysu wada yimi oo gabadhii soomaali arkaysay laga qorqorxo laba dumara baa yimi oo layidhi iyadaa dhashay way dul yimaadeen way ka dul ooyeen ma shame yani dhacay waan ka xumaay ma laakiin cabaar kadib mid baa tiri anigu waan sii soconayaayo berri dayuuradda ay go-on holidaygii baan tegaya hooyadaabaa inankaad habaratu ahayd farasaaray innaga damiirku iyo gabadha soomaaliyeed siinayaa inay holiday ka fikirto oo maya soo dhamina waxay ka imanayaan waxa weeye tacaaliim alislaamiya diinteennu waxayna farayso iyo dhaqanka aynu qaadanay ee rabbaaniga waxaa xitaa qofka lagu waajibinaya haddaad kala diintihiin adiyo waalidka ama hooyada weli waajibkii kaama dhicin odhan maysid waa gaalo islaanta ay dhashayo waxba iskuma dartano may waajibkii waalidnimadu وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ويدا يا أبا هديك ولدان قالوا ود كبح دينت هيلي لكن أنت أي نوليهين وناك بعد كل رقميس وناك هذا ديالي ودو حتى وكوي يعني عن كل دين تاهين هل كاسا يعني لقى عليه وقت الاسكتاي gabadha la odhan jiray asmaa bintu abi bakr sidiiq oo abu bakar dhalay radia allahu canhuma zubayr ibn alcawaamna u dhaxday oo cabdullaahi ibn zubayrna dhashay ayaa hooyadeed oo aan muslim ahayna u timi hooyaday baa ii timi oo gaal ah maxaa yeela waad u samafalaysaa buuri waajibkii kaama dhicin halkaa ayay barati ka taagan tahay waxyaabaha laynoo diiday waxaa ka mid a almugiira ibn shucba saxaabiga radia allahu canhu sida uu werinayo
إنه للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأبهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وحيابها سوشيالي iyo psychologically ba mujtamaca faga ee dila hooyo in aad ku xumaato waa xaqeedii marin weydo waa xaaraan mamnuuc weey wuxuu ka dhigan yahay la mid yahay caadadii xumayda carabtu ay lahaayeen qabla islaam ee habla nacaybka haddii hawlo ku bataan uu qaar aasi jiray iyadoo dhool wacd albanaat iyo arrimo kale oo fara badan way jiraan yani dhaqankeena islaamiga iyo dhaqamada kaleba dad badan oo taariikhda adduunyada magac iyo maamuus iyo wax badanna kusoo kordhiyey oo ay hooyooyin yani ahaayeen raadka iyo saamaynta ugu weyn waxaa ka mid ah yani a'imada islaamka waaweyn imaam malik iyo imaam shaafici labadaba mid walba hooyaa korsatay abo may lahayn agoomay ahaayeen halkaa waxaa soo gaadhsiisay hooyo marka macnuhu maaha yani xanaanaynta physicalka ah aanaha siiyo yaanu dayacmin oo dharka u maydho hagaaji caqligii bay rabaynaysaa ilaa ay gaadheen inay a'imo u noqdaan caalam alislaami oo dhan laba nin oo saynis yahanaa ahoo dunida aada u taqaano isaac newton ولادو وسائلسيان كدنيا ما ugu horeeya marka looga wixii uu ka tagayo ma garanaysaa wixii uu reebay iyo ninka loo jeedo Thomas Edison oo mukhtaracaadka waxyaabahan la leerka ay makaayno bulbka tiriiga inoo baxaya ninka ikhtiraacay yani electric inuu iftiin noqdo la shidan karo waxyaabo kan ma kamid ahay labadaba iskuuladii xitaa macallimiintii fahmi waayeen ay inankii muxiidkan uu ka horeeya uu ku dhex jiro ardaydan caadiga ah la qabsan maayo inankani sibuu yahay bay dhaadeen oo iskuulka la socon kari maayo tacliintii uma dhigan nugulo nama dhageysanayo waa qof yaroo wax kale amwaaj kale ku furan hooyooyinkood baa fahmay Edison kaasi marka ay u keento toy ilmuhu halku ku ciyaari jiray uu jajabin jiray markaasuu baaraya wuxuu ka samaysan yahay markaasuu dib isugu celinaya markaasuu wax kale ka saaraya halkaasi ka galatay inuu qof caadi ah hayn laga bixi maayo maanta oo dhan waxa soo weeye hawl badan baa inoo taala oo xagga hooyanimada ah waa institution waa rug waa mid u baahan dhinac walba inaanu ka taageero aabuhu taageero mujtamaceena kala taageeraan wax badan oo yani hooyanimada ka dhigaya yani aayatiin wanaagsan in aynu samayno tacaaliimta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inooga tegay iyo qur-aanka kariimka ayna inaynu ku soconno allah ina waafajiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waad mahadsantahay sheekh dalmar anigu waxay ahayd inaan in yaroo kooban soo jeediyo laakiin markaan dhegaystay rooble iyo sheekh dalmar waxaan ku daraa waa faduul baan filayaa laba eray un baan ku darsan lahaa mid xagga maansada inkastoo runtii markaan rooble maqlay nidaamkii uu sharaxayay aan ka shakiyey sidii aan anigu u fahmay maansada haddana waan idinla qaybsanayaa waayo waa laga yaabaa in dad ila feker yihiin maansada anigu markaan dhegaystay waxaan u fahmay 3 qaybood oo kala duwan waxaanan u fahmay labadii qiso ee ku kalifay inuu maansada tiriyo markuu hadraawi ka fekeray in uu ka arkay bulshadii waqtiga toddobaadnadii 70skii toddobaadnadan qofaan soomaaliga wasaa ugu adag yahay baa yidhi maansaan fasirayaaba in uu dhaliilo badan ka dareemay bulshadii markaa uu isagu arkayay maansada markaa waxaan u fahmay 3 qaybood qaybta koobaad inay tahay sida realitygu ama noloshu ay tahay oo aan hooyo la'aanteed waxba suurtagelaynin qaybta dambena ay tahay dareenkii ee ugu dambaysa maansada ay tahay dareenkii dhabta ahayd ee hooyanimada loo qabay
qaybta bartamaha ku jirta ee ugu badan maansada in uu cabirayay bulshadii markaa joogtay marka keliya ay hooyada xasuustaan ama ay hooyada xusaan oo ay tahay marka ay ama halyey dhasho ama geesi dhasho ama deeqsi dhasho ama mid suldaana inta kalena hooyo aan la xasuusan waxna loo aqoonin waxa aan daliil uga dhigtay markaa in ay uu sidaa uga jeeday laakiin allahu aclam waktigii markaa uu maansada tirinayay oo ahayd wakti aada ugu adag siiba xaaladda miyiga siiba qisadii uu isagu ka warramayey markii isaga dadka kale ilaaween iyo hooyadii isaga wixii ay u samaysay wakti dhibaatooyin badan ee hooyada la soo gudboonaydna ay ahayd muhiimadday ka lahaayeen bulshada uu ka hadlayay markaana aanay ahayn mid dabadda joogta ama mid loo aqoonsan yahay waxaan kaloo daliil uga dhigtay maansada inteeda dhexe marka keliya uu dumarka xusaa waxa weeye marka uu leeyahay kow waxaan oo dhan ko adigaa dhalay markay wanaagsan yihiin dumarkana wuxuu xusaayoo keliya qurux iyo guur labadaa keliya ku xusaa hadraawi shaksiyan markan eego maansooyinkiisa kale uu tiriyo filosofada ma aaminsana waxaan markaa u fahmay uun in uu ka hadlayo dareenkii bulshada markaa jirtay sidoo kale luuqad ahaan bay kala duwan yihiin saddexda qaybood ee maansada waa hadda aniga soomaaligayga siduu yahay saan u fahmay marka qaybta dhexe wuxuu yidhahaa lagu xasuustaa oo tusaysa plural maaha in uu isagu xasuustiisa ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa xusuustii dadka oo dhan qaybta kalena waa personalize oo wuxuu leeyahay haddii aan ku waayo anigu qabrigaagan ka dul ooyayaa sidan baan samaynayaa yacni personalize weeyaan shaksiyan buu ka hadlayaa marka labadaas yood ayaan anigu u fahmay maansada marka aan cabiro nolosha maanta halkan soomaalida meeshay ku nool yihiin ka jirta ama somalilandba nasiib daro uma arko in wax badan oo isbedeli ay dhaceen daliilihii markaa uu arkayey oo ka dadban ayuunbaa weli aniga iga dhex muuqda hal mid baan ku raacsanahay rooble oo ah qeexidda hooyanimada hooyanimadu adduunka caalamkaa meel kasta shaksi maaha gabadhna maaha wax dhashay ee waa rug institution sidaa uu sheegay rooble weliba rug keliya maahae waa rugo badan oo isu yimi oo fulinaya waajibaadkii hooyanimada waxaana ka mida sheekh dalmar wuxuu ka hadlay hooyada ingiriiska ku bilowda tusaalahaan ama new york iyo hooyada halkan ama miyiga ku bilowda rugaha inaga maqan ama inagu yar qaarkood waa bilow waxaa ka mida rugta koobaad oo ah dee ta caafimaadka markay hooyadaas uur qaadaba markiiba intaanu 8 isbuuc yani bil aanay markaa unu dhammaatay ayay rugta caafimaadku ka qayb gashaa ama ka hawl gashaa daryeelka hooyada iyo ilmaheeda rugta labaad waxa weeye xanaanadii ilmaha iyo hooyada marka uu dhasho taasoo u saamaxda inay wakti nafteeda u hesho wakti caruurteedii kale u hesho ilmaheedii yacni ay daryeeli karto caafimaadkeesii lala sameeyo ta saddexaad rugta saddexaad waxa weeye waxbarasho taya leh oo goor hore iyagu ay soo geliyaan ilmaha halkan ku dhasha weligay maan arkin iyadoo la leeyahay wuxuu leeyahay developmental stages ama markuu 6 bilood jiro ilmuhu aabihii hooyadii ma kala yaqaanaa markaad eegtid eye contact ma kula samaynaya markaad u qoslaysid inaad u qoslayso ma garanayaa markuu 9 bilood jiro haddaan kubad u tuuro dib ma igu soo tuurayaa ma fahmayaa actionkii aan samaynayay marka waxaasoo dhan bay ilmaha u qiimeeyaan intaanu 2 jir gaadhin way kuu sheegayaan waa lagu sheegi karaa in ilmahaagu maskaxiyan uu caadi yahay iyo in kale in uu u baahan yahay aqoon iyo taageero dheeraada iyo in kale inuu genius yahay oo uu carruurta kaleba ka horeeyo waxaas inagu ma naqaano waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof 5 jir 6 jir ah oo markaa uun ay ku soo baxeen calaamadihii autistica ama xanuuno kale oo aan hore cidi war uga haynin oo lagu leeyahay weli muu hadlin laakiin habaryartii ama ayeydiiba iyadoo 5 jir ay hadalka bilowday ya waxa taa usoo raaca oo laakiin bulshadeena ta ugu xoogan ah bulsho qofka dhaqankiisii cabirta ku dhiirigelisa inkastoo haddana aan magaalooyinka ku arkay inay taa ku liitaan tusaale ahaan ilmihii markuu iskuulka tago
maclimadii waxay ku leedahay caydu uma fiicna qofka si ixtiraam leh ula arka waxyaabahan Somaliland ku arkay waxa weeye qof yaroo 3 jira oo cay aanan anigu aqoonin yaqaana because wuxuu arkayaa ka gaadhiga wada ee wadada maraya caytamaya ciyaalka jaarka dhawaaqooda u baxaya iyo dadka waaweyn way caytamayaan guriga laftiisa waxa laga yaabaa in wax ka maqlo iskuulkii waxa laga yaabaa inaanay barbaarintii ka qayb qaadanin ee ay qaybsiyaan ama alif baatada ama ABC-da ama xifdi quraana ay sameeyaan laakiin aanay mucaamiladii iyo aanay u dhigin mannerskii iyo etiquetteskii taas waxa sababay markaa in culays badani hooyada Soomaalida ay saaran tahay culayskaas oo aan inta badan cid u qorin adduunka intiisa kale waxay isku raacsan yihiin motherhood ama hooyadu inay shaqo tahay Somaliland uma malaynayno inaynu shaqo u naqaan waa shaqo la mid ah markaan anigu xafiiska u shaqo tagi jiray imika hooyaan ahay xafiis uma shaqo tago laakiin maalin walba waan shaqeeyaa waxa laga yaabaa shaqooyinka saacadahayga imika inay ka dheer yihiin saacadihii markaan xafiiska tagi jiray waxyaabahan kale ee rugtan ma abuurmayaan ilaa kow la isu qoro horta waxaanu inuu shaqo yahay shaqadan oo aan ahayn mid hooyada kaliya haysatee ay tahay mid bulshada oo dhan u taara mid rugihii oo badan u baahan mid taageeradii u baahan waxyaabaha aan ku arkay waxa weeye Somaliland qofka shaqo taga ama gabadh ha ahaato ama nin ha ahaato cuntada inta fiican baa loo sii dhigaa kullaysa yar baa loogu sii ridaa biyaha waxa laga yaabaa in biyo bathroomka loo sii dhigo markay yimaadaan meesha ugu fiican baa la seexiyaa qaylada waa laga yareeyaa weligay 11 sanadood baan Somaliland joogay ma arkin iyadoo la leeyahay saacada hooyadu ha soo nasato maalinta jimcaha anaga carruurta haynayna iyadu hay ha qaadato never ma aha concept maskaxda inugu jira waayo ma qirsanin hooyanimada iyo shaqadan galaysa inay shaqo tahay inay hawl tahay uma qirsanin ilaa aynu taa isu qirnana waxan kale hooyo amaanta waa iska buubaha un baan anigu arkaa anigu markaa waxaan aaminsanahay in aan bulsho wanaagsan samaysmaynin haddaan hooyadii lala caawinin arrimihii guriga haddii aan hooyanimadu noqonin wax marka hore laga tashado sida looga tashado shaqooyinka okay carruur bayn dhalaynaa soo maaha markaan carruurtii dhalo shaqadaydii aan ka joogsado sidee yaa caawinaya intee baan joogaya waxyaabahaasoo kale discussionka inagu ma galno taageerooyinkii imika haddaan anigu doonayo inaan shaqadii ku laabto ma jirto Somaliland meelaan ilmahayga ku aamini karo 4 saacadood intaanu iskuul bilaabin oo dhisan oo hagaagsan oo daryeelaysa caafimaadkiisii waa inaan ama walaashay u geeyo ama hooyo la raadsado ama ayeeye la raadsado dadkii magaalada soo galayna dee qof walba ma helayo hooyo iyo ayeeye habaryaro halkan u taagan mana aha in tusaalahan dhibaatooyinka ugu badan ee imkana haysata waxa weeye waxaad arkaysaa ayeeyo 80 jira 10 carruur iyadu korinayso dad u dee hablaheedii ama inamadeedii dhaleen oo culayskii ay markii hore hooyanimo soo qaaday imika culays kale ugu sii darsamay waxa isdulsaarkaana waxa kala keenaya nidaam la'aanta ka jirta iyo inaanay rugihii taageerayay hooyanimadii aanay jirin lana qirsanayn hooyanimadu inay tahay wax inteenan oo dhan inoo taala wax bulshada oo dhan u taala wax dawladda u taala wax culimada u taala oo qof walba qaybtiisii uu ka galo ee laakiin ay noqotay wax la yidhaaho waa adiga waxaagii weeyaan marka qofkan la arkana la yidhaaho dee si fiican baan loo korin markuu wanaagsan yahayna sidaa ha raawi marka la yidhaha wallahi ismaan yaro fariidaa dhashay oo dabeedna waa caaqil ama waa geesi ama waa kan ama waa keer marka anigu maansadana sidaasaan u fahmay waxaanan jeclaan lahaa in hooyanimada loo arko sidaa haadraawi maansadiisa intee qaybta koobaad uu ku cabirayo qaybta dhammayskaa qof walba markay hooyadii dhimato wuu calaacali wuu dareemi taas waa innate way nagu abuuran tahay laakiin markaa aad calaacalka samaynaysid waa too late waxaan kaloo ku darsan lahaa ugu dambayntii Soomaali hadday nahay waxaynu ka helnaa in qofka la cadaadiyo in sufferingka waynu jecelnahay tusaale ahaan maanta baraha social mediaha waxaan ku arkay gabadh umushay oo dabeedna imtixaankeedii u fadhiisatay saacad markay umushay ka bacdi waxaanay dadku u dabaaldegayeen inuu yahay wax wanaagsan waxa ayna tu samaysay runtii anigu waan ka murugooday markaan arkay waayo carqalado ayaa jiray inantaa ku khasbay
in iyadoo saacad ka hor umushay inay imtixaankii maanta u fadhiisato waayo waxa aan jirin nidaamkii u awoodayay inay imtixaankeedii dib u dhigato aanay sanad hadhin waxbarashadeedii ka khasaaroobin waa geesiyad waa qof nool waxay samaysay waxaan caadi ahayn laakiin maaha waxaynu dabaaldegno waa waxaynu ka argagaxno waa waxaynu isla yaabno bulsho ahaan waa wax meelaha tacliintu ay ku canaanan yihiin oo ku dhaliilan yihiin in ay saarayaan culayska qof bila'aadana kaaga daranka ay la tartamayso iyadoo saacad ka hor umushay qof caafimaad qabay oo gabadh iyo dumarkii dee ay isku galaaska ahaayeen oo iyagu aan 9 bilood soo urqaadin aan maanta umulin waxa ugu badan ee dib ay soo mareen ay ahaayeen 2 saacadood oo habeenkii ka mid ah inay imtixaankoodii wuxuu soo qaybayeen oo iyaduba taa ay samaynaysay sidoo kale wiigii hore waxa ku jirtay gabadh gobolada dhexe ilmo yar xambaarsan shaqadii ku khasabtay inay ku soo noqotay markay umulanayd 3 miil sidoo kale waxa la lahaa gabadhan eega oo shaqaysanaysa waa geesiyad waa kan waa keen waa run iyada shakhsiyan laakiin duruufaha ku khasbay waa qalad mana aha waxaynu dabaaldegno waa wax isla taasoo kale ah hooyana ma jeclo ilmaheedoo 3 wiig jiray inay la tagto meel dad waaweyni joogo in ay u expose garayso ama TB ama cudurrada kale ee dadka waaweyni dee ay haystaan way jeclaan lahayd inay daryeel iyadu caafimaad hesho ilmaheedu daryeel helo ay gurigeeda joogto ay hesho maternity leave oo loo qirsan yahay qofkii shaqadiisii uu ka tegayaa shaqo kaluu soo qabanayaa ama sanad ama 9 bilood mushaharkiisii loo sii wado dabeedna markuu ilmihiisii dee uu kobco ee uu koro uu ku soo noqon karo booskiisii isagoo aan carqalado kale la kulmin marka anigu waxaan lahaa bulsho ahaan waxaynu u baahan nahay in haddii aynu doonayno xaqdhowrka hooyanimo haddii aynu doonayno inaynu hooyooyinka dayac tirno aynu doonayno bulsho wanaagsan oo hooyanimadii soo korisay inaynu u baahannahay inaynu rugaha aynu ku taageerano hooyada eegno haddii kale kuwa Sheekh Dalmar sheegaya ee Ingiriiska homeka waxba ma dhaano just way inoo qarsoon yihiin inaga tacdiyaha aynu ku hayno hooyooyinka runtii waxba ma dhaano marka inagoo kuwa la yaaban haddana wallahi runtii inaga lafteena marka la eego dhaliilaha iyo dhibaatooyinka hooyooyinkeen haysana wax aad u la yaab leh ayaa inagaba inooga soo dhex muuqda intaasaan kusoo koobayaa si aan waqti ugu helno su'aalaha iyo dadka doonaya in iyaguna fikradahooda kusoo darsadaan waana mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay Sahra aad baad mahadsan tahay Sheekh Dalmar aad baad mahadsan tahay Roble Cabdi Muuse waxaan filayaa maadaama aanu inala joogin baankii qiimaha lahaay hadraawi in hoose aanay jiraynin dabcan laakiin waxaan doonayaa intaynaan qaybta u dambeysay barnaamijka inaan u gudbin inaan faallo halkan waxaa fadhiya jaamac din Allah barakeeyo Saciid Adeer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigu xilligii iskuuraya dad badan oo doonaya ama su'aala inay geystaan ama inay ereya ka yiraahdaan arrintii halka kan leeyno ka wada fiicnayd waxaan isu yara taagay laba ereyo aad u gaaban inaan magartay madasha u soo jeedo labadaas waxay yihiin maansayahanka oo ama ha ahaado lab ama dhadig ama nin ama haween labadaba waa dadka curiya maansayahanka iyo lafaguraha maansada oo waxa weeyaan qofka maansada ka faallooda maansayahanku iyadaynaan tafaasiil badan sii gelin waa qof markiisa horena hibo iyo hoodo eebbe u siiyey ka bacdina oo ah tasii culus bartay ku dadaalay dabagalay aan ka hadhin oo ka gaadhay heer uu isagu kolkaa curiyo oo maansadii intuu tiriyo dareeriyo dadkuna u aqoonsadaan inuu yahay maansayahan oo uu ku noqdo hadba arrinta la kulanta nolol maalmeedkiisa ama ra'yiga markaa maankiisa ku dhaca oo aan ra'yigu ka iman mid dusha uun kaga soo dega ee uu noqdo mid uu kala kulmo nolosha uu ku jiro ama nolosha bulshadiisa ku jirto arrinta uu arko inay u baahan tahay inuu wax ka yidhaahdo talo
tusaale sifayn uu u soo gudbiyo dadkiisa oo ugu soo gudbiyo iyadoo maansaysan maansayaha kuwa ka iyadoo urursan oo aan tafaasiil badan u gelin kaas waa maansayaha ka labaad waxa weeyaan waa lafaguraha waa ka faallooda waa ka waxaynu nahnaa waxa weeyaan faallada waxa weeyaan lafagurka waxa weeyaan falanqaynta qofka hawshaas gala ee aynu caawa uu ina kala joogo aynuna ka dhegaysanay bilowgiiba Roble Cabdi falanqeeyo maanso ama lafagure maanso muxuu xaguu ka shabaha maansayaanka xaguuse kaga duwan yahay maansayaanku waa kaan sheegay laakiin lafaguruhu waxa weeye qof maansada jecel in doora dhegaystay in doora dabagalay dhadhansada dhuuxa ruuga muudsada macaansada ee aan intaa keliya kaga hadhin ee hadhowtona intuu gudagalo fiiro dheer u yeesho iyada lafteedii kala dhigdhiga kala dhambala dhinacyo badan oo aan la filaynin ka iftiimiya oo kolkaa bulshada u soo bandhiga intay kolkaa ku kala duwan yihiin waxa weeye markaynu idhaahno maansayahanka Soomaaliyeed ilaa 200-300 sano ugu dambeeyay aynu idhaahno raagay ka bilaabantay raagowgaas iyo ilaa maanta deenateen waxaa arkaysaan maansayahano badan oo rag iyo haweenba leh oo aad iyo aad u caanbaxay laakiin way adag tahay inaynu maqallo cid la odhanayo waxa weeyaan lafagure maanso waayo meel yar oo aan idiin iftiimiya waxa weeye maansayahanka oo dhami inta keliya u baahan yahay waxa weeyaan inuu afkiisa yaqaan dhaqankiisa yaqaan ku xeel dheer yahay hibadeedii leeyahay ku dadaalay ku dhex noolaaday ummaddiisii oo kolkaa waxyaalihii uu la kulmayay soo daayay laakiin haddaa maqashaan lafagure ama falanqeeye ama kafaalloode waxa uu u baahan yahay isagiioo mar walba looga baahan yahay inuu yaqaano dhadhansado macaansado ruugo u kuurgalo waxa u dheer waynu ila aqoon kale oo aqoontan cilmiga ah la bartaa waynu u weheliyaa waynu af kale yaqaanaa waynu maansooyin kale yaqaanaa waynu wuxuu barbar dhigi karo oo kale u haystaa siduu mararkii dhaweyd masalada ina ka siinayay ilaa inaga keliya maaha adduunkuna waynu la qabaa dadka sidaas oo kale oo la yidhahdo art critique ama literary critique oo waxa weeyaan falanqeeyaha maansada ama suugaanta waxa weeyaan dad aad waxay ka dambeeyaan kuwaasi 100 sano 1000 sano ka hor ayaa maansooyin la tirin jiray xilligii Greega iyo laakiin marka aad u timaadid dadka falanqeeya waxa weeyaan qarnigeena kan ugu dambeeyay ka 19aad iyo 20aad iyo xilliyada dambe innakana ilaa iminka aad iyo aad baynu ku yariyeen waana barakotiris intaa waxaan u jecelaystay inaan inoo kala sooco si aynu u garanno aad baynu ummad ahaanaynu u baahannahay in ay inoo tiro bataan falanqeeyayaasha maansadu waayo intaasoo maansaynu wada naqana mid walba haddii sidaas ilays iyo iftiin loo saarayo micnayaal badan oo ku duugan ayaa inoo soo bixilaa waan kaga baxayaa intaa waxaan u tegayaa duco hooyo laba eree hooyo maxay tidhaahdaa hooyo ilaahu belada hore riixan ta dambe ilaahu belada hore rooran ta dambe riixan ta sare raaran ta usug reeban hoose radeeban ta hareeru yani kasay tidhaahdaa intaa kagama hadhee qoraxdu dallaalnimo wadadu hee jidku toobiye qoraxdu dallaalnimo dadku hee aabbiya hoy maxaa halkaa kaaga baxaya meel aad arkaysid oo ruwax lama degaa gabaahiira hadday tahay qodaxdeeda hadday tahay cagaaggeeda iyo dhagaxeeda hadday tahay qorax kulaylkeeda omaskeeda iyo qorax kulaylkeeda hadday tahay dhinac walba xaggii dabiicadda iyo xaggii kaleba meel qallafsan oo dabiicaddu aad u qallafsan yahay oo colaadina ka aloosan tahay oo meelaad ku nabadgelaysid aanad garan karaynin ay ka baxday adeer iyo inadeer iyo abti iyo habaryar iyo hooyo iyo ay hooyo garatay
in cidda keliya lagu aamini karaa ibadkeeda ama ilmaheeda kuwii ay yihiin aabbo iyo hooyo. markaynu sidaa u eegno wax ka qurux badan, wax ka macaan, wax ka iftiin weyn, wax ka naxariis badan oo ay hooyo u quri lahayd ilmaheeda ma hayno. waad qaadaysaa oo meel mar dhaweed uu ka sheekeynaya Roobland la tegaysaa oo Sweden iyo Norway iyo Scandinavian meelo la yiraahdo ama meeshaynu doonaba ha noqotee oo dunidu berf leedahay oo dhulku laami yahay oo kolkaa markaan qorraxdu dalaalimo yidhaahdo iyo jidku toobiya iyo dagaalla aanu ka jirin oo abiyo hooyo iyo kolkaa maxaa halkaa idinka baxaya? waxay noqonaysaa hawraar habargelisay. maxaa isbedelay? waxa isbedelay ama duco ha noqoto ama mahmaa kale ha noqoto ama murti ha noqoto, wax waliba meesheeda iyo munaasabadeeda iyo duruufteeda iyo xilligeeda ayay qiimi iyo qadari ku leedahay. arrin kastoo inala soo derisa loo toghayo in mar walba lagu eego lagu iftiimiyo xilligeeda iyo waayaheeda. markaasaa macnuhu si wanaagsan inuu ku dhacaya. waana mahadsantiin, raallina ahaad. aad baad u mahadsan tahay Siciid Jaamac Xuseen. waxaan doonayaa maadaama waqtigu isku rayo sidaynu xagga horeba waqtigii saxda ah uga bilownay inaynu xagga dambena waqtigii saxda ah ku dhamayno. marka laba faallo ama laba su'aalood kolba wixii haysta adigoo magacaaga ku bilaabaya fadlan. بسم الله مقعي ويدرس محمود عبدي أدبو مهتسن يهين مرت شرفت إيو هذا الذي قيمها لها هي كتشيديا وحن سؤاله هي يعني روبله فلقينتها وكبحيي ما انصد أيضا وحن كوي الدين لها دقن كصومالي دا وحتى رهورته هو يدي وحتكم معنا دقن كصومالي ها أستامه أي ما انصد قد بيني سنة وحتى وأستامه دقن كو إن جربوا إن لا نجهله بس سحو فهمي marka astaamaha iyaga ah inta badan waa astaamihii ragga sida geesinimadii, deeqsinimadii iyo wixii la mid ahaa, hogaamintii oo qofku hogaamiya inta badan dhaqankeena waxa weeye qofka ninka weey sheekha ka dhawaajiyo wuxuu yidhi ninka looma gacan dhaafi jirin xoolihiisa. macnaheedu waxa weeye deeqsinimadu astaan ma ahayn dumarka lagu ammaani karo. sida odhan karna marka astaamahaasi waxaa ka maqan astaamihii iyaguna wanaagsanaa ee dhaqankeena ay ku lahaayeen dumarku, oo maansadu waxay muujinaysaa qaybtii raganimada ee dhaqankeenu waa awalba muujin jirta. السلام عليكم. magacaygu waa Hadiye. waxaan anigu faalan ku darsanayaa gabayga hooyanimada markuu ka hadlayo hadaawi marka u eego dhinacaayeen iminka aad ku falanqaynayseen dee hooyadu may dhalin inuu kaliya ta geesiga iyo ninka deeqsiga iyo dadka wanaagsan oo kaliya dad xanuunsan ayaa jiro oo laamiyada jiifa qaar jeelasha lagu hayaa jira. intaba hooyaa dhashay ama bi'adu ha xumayso amaba hooyada ama hooyadii waaye ha noqoto wixii doonaha loo eedeeyo. marka dhinac ahaan waxaan ka qabaa fikradda ah hooyadu inay tahay waddankaagii hooyaa la yidhaahdaa. qof walbaaba bartuu ku dhashay waa hooyo u ah, aakhirna uu kusoo noqdaayo kusoo dambeeya. marka wanaagaas ayaan u filayaa inuu kaga hadlayay, waayo hooyo cid walba way dhashaa. dhinac kale markaad ka eegtidna dee ninku markuu xumaado waxa inta badan rag waxay u eedeeyaan hooyada, waxay yidhahdaan dee adaa dhalay. markuu wanaagsanaadana dee waa ina hebel baa la yidhahdaa oo ina hebel weeyaan. marka mar walba hooyada inta badan focuska lama saaro markay wanaaga tahay. ammaantana dee inta yar ay wanaagsan unbaa ammaanto oo ma gabayga ku sheegtay, laakiin xataa hooyo kasta ilmo kastoo dhasha dib uguma noqdo uma mahad celiyo. ta inanka haddaan yadna in yar ka idhaahdo marka laga hadlayo qof laga hadlayo ama diinteenu xataa mar walba nin marka la yidhaahdo dee gabadhii way ku lamaan tahay oo gabadhu meel la kagama maqna ninka oo feedheedii oo isagaa laga abuuray. marka mar walba ereyga rag lasoo qaada waa wanaag. hadduu qof wanaagsan yahay gabadhii wanaagsanina way jirtaa. haddii gabadh nin wax hogaaminayaa jira, gabadh kale oo iyadna ama guriga ha hogaamiso, hoggaan kastoo wanaagsan way kala sinaan karaa ma qaba. waa sax walaal, su-aasha waan u tegi. aniga marka hore doodaydunba waxay ahayd heesta hooyo iyo hogaaminta. waa falanqaynta markaad meel badan la baxayso maaha. Sahra waxay furtay topiga yadna naxariista. haddii markaa yadna halkaa dooda haddana la galo jaanib kale waan mari karnaa, way qaadan kartaa interpretation kale.
waxaad moodaa uun beydkii aan ku furay doodayda ee ahaa isagoo hal keliya dadku harag shabeel iyo u xidhaan hariiriyo qofba halka uu doono wuxuu ugu habboon yahay soo maha markaas sahrina markay halkeedii la martay iska sheeko xaalad okaya bay ahayd moogtay anuu taadixtaa waa sax baan arkay anna xaggan aan la maray dee sax baan u arkayo waa aniga san u fasiray waxaa laga yaabaa meel kaloo kasii qurux badan inuu qof kale la mari karo marka waa dhinacaad ka istaagaysa iyo kolba falanqaynta aad qaadanayso waxaad u qaadanayso hadraawi ma raggoo keliyuu ka hadlayay waa su-aal ta labaad hooyadii ilmaha jilicda san la dhashay maani hooyahayn waa su-aal soo noqotay inta badan marka laga hadlayo heestan marka si guud baan uga jawaabi horta haddaan hadraawi markaan hadraawi hees ka mid heesiisa falanqaynayo waxaan la akriyayaa sugaanta kale hadraawi oo dee marka hadraawi muu yahay nin naxariis daranoo yar adagoo geel qaado oo aan dumarka xaggooda eegi karin mise hadraawi waa qofkaa ka duwan hadraawi waa nin very emotionala waa qof aada u qalbi jilicsan waa qof kalgacal miidhana waa nin aada u naxariis badan anunbaa hooyadaaya hadraawi baa dee leh waa yadba waa xaalad kaluu dee hooyo kaga hadlayay ubaxay tii kalen dee soo qaadanayay ubaxay indhayaa badana dee waa inan hooyaa buu leeyay soo maaha balbaabkan garaac umul baa hurudee oo inan yar oo qurux badan oo markaa qaan gaadhay buu u baqay in nin qalloocani uu si khaldan uga faa'iidaysto maansadaa hadraawi ninka qalloocan buu ku dhex caayaya wax aqoonka haddeer uskag baa ku jiray imisaa jiray waa marka waxaynu la akriyaynaa maansadan markaa shaksiyadda hadraawi ayaan dee la akriyaynaa marka shaksiyadda hadraawi ma aha shaksiyad masculina oo adagoo caynkaasa marka waad igu kalifaysa inaan aamino markuu hogaamiyaha ka hadlayo in labadaba ka hadlayo inaan aamino waxay u kalifaya hadraawi oo aan sugaantiisa ku aqaanba inuu inantu kaga qofka dumar iyo hooyadu inay kaga micno badan tahay ninka markaa dee mana qaba anuu deeqsino dumarka waa ku ceeb ani walaasha hadday waxisiiyada walka waxisiiyo waa okay markaa yaraa in hooyada aabbaay ama haddaan goostadii hooyada aabbaay baa shaqaado u sokay habarta kaltuun waxisiiso haba ku salaamaya habarta kaltuun baa fadhiday habartaysiisa waa okay marka waa okay inay hooyadii deeqsi hadday noqoto iyo aabbahay hadduu deeqsi noqday waa still waa okay geesinimada intaba waan ka rabaa still waa iska personal soo maha laakiin gabadhaydu in iga geysantaa ku ammaanaa iga cado adag tahay waa okay anu waxaan arkaa wanaag dhibaato ma arko waa okay marka ma cidna uma xidhna waxaan kaga bixi uun hablo geela dili karaa hablo geela dhicin kara soo maaha garta madal ka naqi kara hablo geesi dili kara waa hadraawi soo maaha marka hadraawi dee waa ma kooto rag uguma xidhnaa ayaa lagu xasuustaadaas waa habluhuna way la leeyihiin haddaan hadraawi aqaano tii hooyada haddaan anuu heestan u arkayay inay bulshada la hadlaysay hooyanimadana aan ku qeexay rugo aynu ku qeexnay ummaddaa laga rabaa ummad maaha inaan la xusin maaha inay hooyanimo waayeyso waxa inagu waajibo ummadnimada ku waajiba ilmaha hooyada waalan dhashay ka waran iska dhaaf hooyada ilmaha xanuunsan ee dhashay hooyo waalan isoo ilma dhali karto ilmaha hooyo xiskeedii maqan yahay ay dhashay dee ummaddaa laga rabaa inay hooyanimadiisii qaadato ilmaha intuu caawa dhashay ee hooyadii dhimatay so ilmo inaga naga mida maaha dee ummaddaa laga rabaa inay hooyanimada qaadato marka mentality yaroo iyadna igana allah waan ku darsado sahrana ayaa jirtoon anu aada ula dagaalamo maaha in dagaal lagu soo import gareeyo mentality yaro waxaad moodaa jirta in dagaal laynoo soo waaridayo oo dumar yar maaha noloshu inay dumarka yar wax kala dhacsadaan anigu anu aragtayda raalli ahaada haddii aan yar xadgudbo laakiin maaha sidaa haddii meel aynu dareenno inuu xaq ka maqan yahay waa inaynu isweydiinaa xaqaasee lagu helaya
xitaa cadaalad ma keento perpetratorka haddii qof uu xaq uu ka maqan yahay micnaheedu maaha nolosha kuma samaanaysa in ka kale la dulmiyo isna waxaan hayay waxa weeye qofkan xaq uu ka maqan yahay inaynu xaqa u helno marka tartanka waxa ka fiican isdhamaystirka hooyooyinkaas waa in loo hiiliyaa hooyooyinkii sahal sheegaysay waa in loo hiiliyaa aada loogu hiiliyaa midna aan sahro ku challenge gareeyo ingiriisku soo maaha economic cidda qorta ugu badan problemiska inaan hooyanimada shaqo loo arag maaha dhib soomaalida oo keliya ay leedahay marka GDP-ga waxaa la yidhahdaa laqiyax waxaa la yidhahdaa GDP-ga limitationkiisa waxaa ka mid a ma account gareeyo shaqada hooyanimada marka waa xirfado yaroo intan dambe un la baranayo inana waa dhabgareynana innaga maternity leave-ka sharciga somaliland imika waa 4 bilood aan kordhinayna maternity-ga insha allah waan kordhinaynaa raggaa dulman maternity-gu waa 0 annaguna maternity waan u baahannahay waayo xagga kale maternity waa 4 months moogtay waxyaabaha inaga maqan oo dhan waynu doonanaynaa laakiin ma tartamayno waxay naga maqan wada raadsanaynaa dhammaanteen hooyada inta ka maqan waan doonaynaa aabbaa inta ka maqan waan doonaynaa ilmaha inta ka maqan waan doonaynaa waa la isdaryeelayaa aan ka baxa waad mahadsan tahay rooble sheekh dalmar I think halkaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa laakiin rooble waa kula kaftamo qof walba inta ka maqan baa la weyn inta nimanka somaliland ka maqan aad bay u yar tahay marka taana ha lagu darsado qorshaha ismaaciil heesta iyo dee adiga ها أبد ما هسنتين إلى سيد ويا فضلا سهرة جبريل طلع عبد الموسى شيخ محمود أحمد شيخ دلمر يا أبد ما هسنتين وموضوع عاودنا هذه الفردية يهدي ندم بابا أنا كنت أماني دوت وسعتها أونلاين بكسعتها قفكي حسين يا تويتر كا بعد راعي دونتا بيج كحرمت إن شاء الله أكونتك هذا هسه ما أنت اللي قد دودي وهستي محيط هاي sidee loo qaadaa waxay noo jooga halkan 4 qof oo kala ah nagiib wadna kaawe oo xagga sokeeye soo xiga cabdi qurbaani oo cuudka haya maxamuud cabdillaahi oo ah durbaanka ama darbugada iyo suudaani oo isaguna codka ah iyagaan hadda dhegeysan doonaa heesta aynu caawa dhan ka faalloonaynay keligeed
تكفيسي حكم الحساب ترلبوني مركاتني ديلو لقبقوا هجيسيو انت شابا ويلبقى توسا مركاتني تقلينو مركات نقولو مرتاق تقلينو كل ساعة مغلوب سؤاليو كل ساعة مغلوب سؤاليو عيدي ساموكو وإلى هيسيو وبكرة شابا وإلى محدوسا مرتاحات
baxsanaysa hablaha daweeye marka guud loo haybiyo gabadhidaadheeru obalaamudu yadinu ku baadho oqanatahsanu walaga aruusaa way lagu xaduusaa buu mahadsan yahay maxamuud cabdilaahi nagiib wadnankaabe cabdi qurbaani iyo suudani oo heesayey aad iyo aad u mahadsan waxaan waa hab aad u wanaagsan oo lagu soo gebagabeeyo wiig dheer dhammaantiin waxaan doonaynaa ogeysiis iyo kaga baxo maxaa la yidhaahdaa iyo codsi ogeysiisku waxa weeyaan barnaamijka xiga wuxuu noqon doonaa midaan kaga hadlayno dhallaanka way isku xidhan yihiin hooyada iyo dhallaanku khamiisteeda insha allah waxaa iman doona qoray buugaag asmaqalla xagga dambe intiina baxaysaa idinkoo degan baxa fadlan weli dad baa fadhiya markaan kaga hadli doono dhallaanka buugaagta laga qoray iyo aan culayska xaggaa saari doono taas waa iga ogeysiis waa waktigan oo kale 7:45 khamiista dambe haddii ay beydmo waxaan ka codsanayaa maadaama aad si wanaagsan u fadhida u nasateen
in kuraastana kursigaaga kursiga ku xigaad ku dhex rido inta aanad bixin ka hor waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu